رب العالمين horta marka hore waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa magaalada wadamada ka qayb galay saxaas Ethiopia iyo DB World ay Imaaraadku leeyihiin iyo Soomaaliya waxaan baleenayaa waa talaabo aad iyo aad u soo dhaweynayno waxa halka ka muuqata arrimo badan waxa ka muuqata in Soomaaliland ay noqotay dal la aamini karo oo la isku halin karo oo heshiis geli kara oo la maal gashan kara ka dhalatay halka waxa ka baratay wadamada IGAD amba Horn of Africa halkii colaad u dhaxan jirtay inaynu cooperation wada xaqabsi iyo magaalada integration economy integration oo bilaabmay beyond the crisis marka waxaan inaga dhamaaday Soomaaliya hagaagta hadii la yiraahdo heshiiskani waa heshiis Soomaaliya sharci u leedahay heshiiso hore badan adduunka la gashay waa de facto state waxa heshiiskan Soomaaliya dawladda Soomaaliya iska magaca waxaan ku heshiinay markaan ahayn wada hadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya 2013 ki Istanbul in wadan kasta uu xaq u leeyahay wixiisa inuu horumarkiisa samaysto taas waa tilay nagu sameeyay special arrangement-ka Somali Compact mashruuc loo oran jiray madaxweynaha Soomaaliland iyo madaxweynaha hore Xasan Sheekh labada madaxweyne horeba waxay ku wada shireen 2014 December Djibouti lagu heshiiyeen wixii horumara aan magaaladaas aan qolka xaq u leedahay marka waxaan taasoo inay dhex taalay marka ninkan iska hadlaya de kolba wad ogtiino mid NGO yar haysan jiray oo kolba ka dhigan madaxweyne tamay laga soo qaado ninkan la yiraahdo khayre waxa weeye waa mid iska daa Soomaaliland Soomaaliya horta wax la yiraahdo oo federal government ma jirto waa magac la sameeyay oo lagu qabsado doonaya in shabaabtan lagu la dagaalamo khayraadka Soomaaliyana lagu qaato hadduu naf leeyahay saddex gobol oo Jubaland la baxay ayuu Axmed Madow isku dubaritay oo xaq u lahayn hadduu xaq naf leeyahay dekada Boosaaso Abdi Wali Gaas isagoo waxaan dawlad regional state ayuu si independent u isticmaalaa maga waxa Soomaalidu tiraha aba ka weyn ka yariga cilo ka weyn igu soo daa Abdi Wali uu ka baqay inagana waa masterkiisa hore ma ogtay marka waxa weey ninkan dilaalis baa lagu sheegay oo Somali Gas and Oil company oo ay aragtay deegaala tiriba ma uu joogay meesha markii arinta dhacayso dilaalis laantaas marka anagu aan ognahay maanta Soomaaliya waxaan dawlad loogu sheegay waxa gacanta ku haya Axmed Madow Farmaajo iyo Axmed iyo Abdi Wali Gaas marka Farmaajo la macaamilna saacid ma dooran wuxuu leeyahay wala ay doortay Soomaaliya doorto ayo heelkooda xitaan dooranay wala magacaabay Farmaajo madaxweynaha Farmaajo insha Allah taala ka wada xiriirina inuu waxan la qabo dilaalkan iyo inuu isagu ku kooban tahay waxaan arkaa inuu isagu ku kooban tahay laakiin waxaan sheegaynaa inaanu ka talin karin isaga inanta yar magaalada Soomaali Bantugi wasiirka dekedaha ya kama badbara kama talin karaan waa qaladkan saxayno 60 kii dhacay inta la dalkeega waxaan aqooniba uu ka hadlo waxaan kale aanu sheegaynaa shacabka reer Soomaaliland wasiir kharijiyaha Djibouti waa aragteen halkuu istaagay marka hadaba ragii dadkii kala saar waayay gacalka iyo qaranka taasoo inoo marxad falay Djibouti ay tahay marka abjaash waxaan leeyahay baasha qaranka iyo siidinimadu meel wada galaan qaranka ayaa ka muhiimsan muddo gudoomiye waxa hadda wasiirka arrimaha dibadda wuxuu taageeray dawladda federaalka joojintaas ay sheegtay inaanu sharci darro tahay heshiiskaas waxaan leeyahay Somaliland iyo Soomaaliya wada hadallada Djibouti bay ku kulmayaan miyana caqabad ku noqon karin dhax sida uga noqon kartaa wada hadallada Somaliland waa tan ogaanay waxaan la kulmi lahaa Farmaajo madaxweynaha ya dadkii wax xukumi jiray ma ogtahay anoo ninkan awslaala hadiisa ku qaadan meena awska iibin jiray kuwa waan isagu eegina hadii la yiraahdo inuu waxan la qabiyeen kalo markaas aan talaabo qaadina inaan kaba qayb galno Djibouti waxaan weydiin
qoladii daafacaysay lahaa faysal dheemaal buu qaatay kaayaga baasboor qaatay maantay kala caddaatay ma ogtahay iyo macawiso ma ogtahay marka iyagana kaasan waan eegaynaa waanu ka tashanaynaa oo tegaynaa madaxweynaha cabdiraxmaan waa is arkaynaa mowqif midaysan baanu ka gaadhaynaa mowqif midaysan laakiin waxaan idiin sheegayaa waxa ogaataan cadaawadda idiin qaban madaxda halkaas ee fashilantay laakiin shacbigaa magaarsa uu ka soo jeeda ninkaasi waa beelcee beesha habari hawiya la yidhaha annagu xumaan waa qabno isaga arrintu ku koobantay isagay ku koobantay wax dowlad la yidhaha somaliland federal government ma jirto waa lagu macaamiliyo soomaali lagu baabiinayo oo dhalinyarta lagula dagaalamayo khayraadka lagu guranayo laakiin wax dowlad yidhaha halkaa kama jirto soomaaliya laba wadan bay ka tahay somaliland iyo soomaaliya tani waa jirtaa somaliland waa jirtaa oo adduunka la macaamishaa laakiin wax soomaaliya ma jiro degmo qor ma haysto ma tii kara xalane kismaayo wax uga dhow uhura uga dhow oo kenya gacanta ku haysa berbere muxuu ka yaqaana waxa weeye waa nin iska laab kacay laakiin shacbigaana waxba u sheegeen min hawiyaha la yidhaho shacbigii aan wanaag naga dhexeeyo wixii waa qabiilka jubba haysta ka baydhaba haysta ka majeerteeya haysta ka golaha dhexa haysta west government dowladnimeeda shuruudii dowladnimeeda ma jirto inagu baa dowladda federaalka haye dowlad qabaa'ilka ku qora weligaa ha qorin dowladda ku qorina ha ku qorin inaga waa boormoodgani waxaan jirin marka waynu insha allahu tacaala waynu arrinteen waa dhammaysanaynaa laakiin keena xun waxaa ka xunkaasi ka inaga inagu jira ilaa kala garayna gacalka iyo qaranka iyo magaranaysa sharafta iyo dowladnimo kala garayna martida jecel inuu marti noqdo baasaboor martiyo uu qaad martiyo uu macawiso martiyo kaa la hadla mudane gudoomiye marka laga tago isdifaacidda somaliland soomaaliya adigu siyaasi baa tahay waxbaad magaranaysaa sii ogaan kartaa miyaad u malaynaysaa khatar inay somaliland kaga soo socoto soomaaliya maxay khatar haysaa baarlamaanka kale waxaa la hadal hayaa inay warma baarlamaan ba jira oo ay cunaqabatayn saari doonaan yaa qidiga wax weyn ka dhigaya maxay jiraa deer waxa ma jira ma jiro baarlamaan ma jiro shakhsiyaad la laga soo waray qaar inaga xitaa ku jira man baarlamaan ma jiro dowlad ma jirto maxaa maba jiraan ma awood ba leeyahay maanta Ethiopia iska hortaaga ma awood ay isku hortaagaan imaaraadka leeyahay ma awood Soomaaliland ku leeyahay ayaa jirta maxay nagu sameyn karaan xoog inaga ma qaadi karaan inaga ciidan badan ma jiraan been aan waxba jirin oo mass media social media ka nooliyeen iyo isku tasawira meelahaas iyo kubadal wadankiisa hagaajisay ka qaybgal shirkiisa diyaarad ka hayso maanta charter diyaarad buu ka haysay freedom flight layla marka Soomaaliland waxa isku haleynaysa Ethiopia ma anaga isku haleyn waxa amaar nagu ma ku leeyahay dawladahaas talaba kama qaadi kara inaga talaba inaga qaadi kara muxuu awood ugu leeyahay ka yaray magaalada NGO ka shaqeyn jiray Norwegian Refugees and Council ka shaqeyn halkan inala joogay waa daayeer way kursi aanu qalin la saaray